بسم الله الرحمن الرحيم sida aan ka warqabno waxa adduunka saameyn xoogan ku haya faafinta xanuunka coronavirus ama COVID-19 loo yaqaan oo haleelay in ka badan 150 wadan oo caalamka kamid ah runtii dawladda Soomaaliya waxay dadaal badan ay ku bixisay sidii looga hortagi lahaa xanuunkaas faafintiisa inuu dalka ku faafo sidii loo xakameyn lahaa marka hore waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu cudurkaas inaga badbaadiyo oo qof kasta oo Soomaali ah uu Ilaahay uu garmariyo oo islaama waxa qof kasta la gudboon marka inuu ilaaliyo caafimaadka inuu raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya runtii xanuunka coronavirus wuxuu hoos u dhac aad u ballaaran u keenay dhaqaalaha adduunka oo saameyn weyn uu ku yeeshay waxaana yaraaday isu socodkii ganacsiga adduunka iyo dhaqdhaqaaqa dadka balse ilaa hadda ma jiro saameyn weyn oo xanuunkaasi uu ku hayo oo keenay ganacsigeena wadankeena marka laga reebo runtii waxyaabaha looga hortagayo xanuunka sida waxyaabaha lagu nadiifiyo gacmaha gashiga iyo kuwa afka la gashado oo runtii qiimahoodu aad sare u kacay waxaana si wanaaga maanta inuu dalkeen u haysto badeeco ku filan oo ilaa hadda aysan jirin wax warwar ah oo laga muujin karo sida kale waxay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu ay dareensan tahay saameynta dhaqaale uu keeni karo xanuunkaasi waxaana qorsheynaynaa in diyaar garow loo sameeyo runtii saameynta uu ku yeelan karo xanuunkaasi dhaqaalaha dalka gaar ahaan xagga quutu daruuriga dadka Soomaaliyeed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ganacsatada xasuusinaysaa inuu waajib ka saaran yahay daryeelka bulshada iyo ka hortagga faafitaanka xanuunka isla mar ahaantaana waxay faraysaa in dadka shacabka ah ay ugu naxariistaan una fududeeyaan waxyaabaha loo isticmaalo ka hortagga xanuunka waxayna wasaaraddu isha ku hay doontaa runtii ganacsatada runtii macaashka ka dhex raadisa waxyaabaha looga hortagayo faafitaanka cudurkan COVID-19 ugu dambeyn wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa cid kasta oo gacan ka geysan karta sidii loo kordhin lahaa helitaanka waxyaabaha lagu hor istaago cudurkan ama waxyaabaha looga hortago waxa kale oo ganacsatada wasaaradda ganacsiga warshaduhu ay ka codsanaysaa ganacsatada Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan rugta ganacsiga inay doorkooda ay ka qaataan runtii oo ay dawladda ku taageeraan ka hortagga faafitaanka xanuunka coronavirus oo Ilaahay naga haayay oo mid runtii halistiisa leh